يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا. daawo waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah. صحب بقربهم السعادة والنجاة. amaanada markaad ilaalisay, xaaraanta markaad iska ilaalisay, ayuu ilaahay muxuu kugu abaalguday inuu ku siiyo aniga iyo guriga iyo wixii aad ka tagtayba oo xalaal ah inuu ku siiyo. بقربهم السعادة والنجاة. faatimada aan ka sheekaynaya ee axmed cabditawaab u dhalay waa aniga maanta idin hortaagan, macallimada idin ah. sidaa daraaddeed waxaan idin sheegayaa bay ku tiri khayr haddaad samayso waad helaysaa. بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه. adigu aabbahasaad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma caruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan. دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawada ku soo dhawow barnaamijkan qisooyinka nolosha. waa barnaamij aan ku soo qaadano qisooyin dhab ah oo dhacay oo nolosha ku saabsan. qisadan maanta waxay ku saabsan tahay nin baa waxaa jiray aad uga ashkatoon jiray nin ay jaar ahaayeen, qaraabo ahaayeen. wuxuu aad uga ashkatooday ninkani ninay qaraabo ahaayeen oo siduu uga ashkatooday wuxuu yidhi ninka aanu qaraabada nahay dhib aad u badan bay igu hayaa, meel kastoon fadhiisto uu caayaya, aflagaadu ii geysanayaa, wax alla waxaan samayna garan maayo. wuxuu sameeyey nina isaga walaalihiin ninkaa markaa dhibaataynaya ayuu u tagay. wuxuu ku yidhi niyow walaalkaa dhib buu igu hayaa, meel kasta wuu iga caayaya, wuu iga dacaydaynaya, dee iga qabo walaalkaa. ninkiiba wuxuu ugu jawaabay walaahi walaalkay ilaahay ha soo hanuuniyo, waan iska dhib badanahay, ilaahay ha soo hanuuniyo. ninka arrintii way ku weynaatay sababtoo ninkan mar kastoo ay kulmaanba wax fiicanba kama soo baxaya. wuxuu sameeyey markaa nin buu tagay qaraabo ahaayeen. wuxuu ku yidhi ninkaa hebel baa niyo dhib badan aan ka cabanaya, dhib badan igu haya, maxaan sameeyaa? wuxuu ugu jawaabay waxaad samaysaa suuqaad tegaysaa, hadiyad qaaliyaad soo iibinaysaa. hadiyaddaa markaad soo iibiso ninka baad u imanaysaa, waxaad ku odhanaysaa gurigaad ugu tegaysaa. guriga markaad sidaa ugu tagto uu kaa furo waxaad tidhahdaa saaxib inaan ku salaamaan rabaa. markaad u gasho waxaad tidhaahdaa saaxib hadiyad baan ku wadaa, weliba dar ilaahina waan kuu jecelahay ee hadiyaddan iga guddoon. intaa samee. ninku sidii uu sameeyey, suuquu tegay, hadiyad 1200 oo markaa muxuu ahaaye dirhama ayuu soo iibiyey. markuu soo iibiyey uu soo qaaday ayuu ninkii gurigiisa ugu tegey. wuxuu gurigu tegaya waa kee? waa ninkii dhibaatayn jiray gurigiisii. sidaa markuu u qaraacay ayuu ninka albaabka ka furay. markaasuu weji caabuus oo aad ka naxayso ku soo eegay. markaasuu yidhi maxaad rabtaa? meena soo gashaad rabtaa? suurine waxaan u imina ku yar salaamo. soo gal buu yidhi. sidaa markaan u soo galay ayaan salaamay. markaan salaamay ayaan ku yidhi niyo alaab baan ku wada, baabuurkay saaran tahay, kaalay aan ku siiya. wuu soo raacay buu yidhi. markuu sidaa ii soo raacay aan baabuurka sidaa aan u furay ayaan alaabtii soo saaray. markaan sidaa u soo saaraa waxaan ku yidhi waa hadiyad aad dar ilaahina waan kuu jecela, waxa ugu yaran kuu qaban karana waa intaa markaan iibu yidhi ninka waa ooyeyba. hal mar buu ninka ooyey, wuu isbedelay. markuu ooyey bay igu dhegdhegay. markaasuu yidhi saamax, qalad badan baan kaa galay, wax badan baan kugu gafay, waan kugu gabadfalay, saaxib isaamax oo i cafi. halkii baan isku saamaxnay, sidiiba sheekadu ku wanaagsanaatay. dawa qisadeena maxay tilmaamaysaa? waxay tilmaamaysaa hadiyadda waxa la idhaahdaa qofka waxbay ka beddeshaa. hadiyaddan oo qof u hadiyeysay qofka isbeddel la yaab lay ku samaynaysaa. saa darteed buu rasuulku u yidhi war hadiyadda isa siiya waa isjeclaanaysaane. marka haddii cid aad necab tihiin ood hadiyad aad siiso qofkaasi siduu doona ha ahaadee u isbeddelaya. intaasay ku soo koobaynaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.
بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا